تضرب السنة هذا حسابنا وسهل أوكي مركل الله بكرة تبان كاتب تمام طبعا كاتجها كورما كسولابت سولاب شدي لو كنت أنا لحظة إنك سولابتين جعله أنا لكن لو كنت أنا لحظة حمراء جوي لو كنت بقول لحظة سولابت صح مرتبة أوكي بيش ما حسوتها مركا كإيمانيسو حمر إيمانيسو waxaad sheegtay saddex ninaad oo kala duwan aad sheegtay oo ku guursatay hadda inta meeshan joogtay nin Jeylaan oo ku jira magaciisa Maxamed Muuse Jeylaan la yiraahdo nin dhexe oo aad wiil u dhashay wiil ka dhintay iyo nin hadda ku qabo sax marka aad joogtay maxaa isticmaal jirtaa akoon lama isticmaalin lambarka ka bisa isticmaalay telefoon la isticmaalay waraashanta isticmaalay akoonka goorma furay أكون كمان فرنانة أكون الملي مياد أكون هاد عن ليه هي جرتو كور ما فرت كان هذا اللذ مركا حمري ماذا أو فرها لو جيتني كل واحد نيكون ما تاريخ ده هذا تاريخ ما حسوس مدر مدوني يا ما حسوس تاريخ وقتها ولا دام كله دم بيكسوده أوكي مركات كتمدي حمرات تمدي حلقة أكون كأفرانيسو حلقة ما شدد أنتين لقى قياس ولا حيس ولا مركا كي ماذا حوالي بلوين يراجعون أنا كل كورسين ما أكون كحلقة أفرتان ربعنا أوقات مركات كتمدي لما كل لحية بنات من حمر ساشتي أكونات فرتا على هاي وهذا أديك أقش هاي سوما أكون كأقش حلقة أفرتي ما شدد أنتين لقى ولا حيس وقت قول حيان هذا سديد بلاد تضرب بلاد كبابتنا واحد بدل ما يهان أوكي مركا إيمانيسي ياقو قبل وإفرم ولا يقبل مركز مركا أنا مركا كيمانا لقما قبل ماي أوكي نين كان ويلك ولا شيء ومدكوا بالناس قبلنا شكتي قول ما يسكون شتين أنا ما وقت حالك سنة كاس أسبوع سنة مقعيسة ما تغنى محل إيران سكرية دمستر سكرية عمر وحلو دراهم سكرية عمر وحلو دراهم حسوستي أنت إيه اللي قاس قبتين واحد بدنا اسمه كمان سدح بالعمل يا سدح بالعمل قبتين أوكي محاولش ويل هاي ويل كأو ويقعد أنت قرمو قاعد أنت لا تكون يا لواتن يكوغو لا تكون لواتن كوي قاعد أنت يا لا تكون لواتن كوي قاعد أنت لما كوي لواتن كوي قاعد أنت حلقة أسبوع ستين متقانا سنة كوها سنة تبل بدي كريه مركا كي ماذا سنة الدامانة جوجل أنت سنة اللي قالنا كورست مركا لما كوي لحيته مكيا كتمد أوكي سدح بلاس قبتين أدور لوك فرد أوكي ويل كان لما كوي لبعتكوا كارد تسمع أوكي لما كل لحية تبانكي مركات تمدي إلى لما كوي لبعتنك قفك علم يصير الشام وحرير الذي المقعيس سدح منطقة المياه wiilka seetay wax badan isma isla joogan oo wiilka oo dhalay laakiin mid kale oo ka horeeyay mid kale kuma weydiinba adiga su'aasha aan ku weydiiyay intaad fahamto waxa aniga aan ka rabo su'aasha ka jawaab labis wax kale ha gelin wax kale hadii aan rabana ana ku weydiina hadii aan rabana kuma weydiinayo iska dhaaf ninka wiilka oo dhashay oo aan sheegtay saddexda bilood inaan qabtay oo magaciisa Zakariya Umar ku sheegtay su'aashaydu waxay tahay saddex bilood isqabteen oo isla nooleedeen wiilad u dhashay wiilku wuxuu noolaa ilaa 2020ka meeqa sana ku jirta meeshaas 2016 sano ma ho 5 sano qofkii aad xiriirka lahaydano ilmo u haysay oo kula soo xiriirayay magaciisa saddexan ma taqaan saddex bilnaad oo nooleedeen ninkaas ana uur leeyahay biileeyay ya ana uur leeyahay hadaan biileeyay marka dhalada inaa loo sheego maadarin ayadii oo sheegtay inaa loo dhal loo sheegay inaa kala qabo ahay asiga intuu xiriirinayna okay marka 2016kii ninkaas ku qabay markaan ka timid waa joogto
goor ma kala tagteen maxamed muuse 2016 intaan la gaarnaa kala tagnay ya 2015 bilooyinaa la jirtaa sanadka cusub 2015 iyo bilooyin intaas ma sheekar bilaa la jiro iyo bilooyin marka aad xamar imaanayso mis qabtiin ma soo kala tagteen waa kala tagna markaas isma qabin xamar marka imaanayso cid ma ku dhamaatay mas kuma dhamaan waa ii dhamaatay markaas iyo cid ku dhamaatay okay lambarka 52 ay u dambeeyso 5 35 97 52 waa lambarkiisa asaa iska leh asalkii lahayd asalka lambarka ku aqoon waayo ya lambarkaas lambarkiisa waa adigu ma yeelato lambarkan may lambarkan soo haday su'aalo markii lagu weydiinayo soo ma dhihin lambarkan 35 97 52 maxamed muuse iska leh asigaan iska leh asaa iska leh aniga ma lihi adiga lambarka 572 eber 2 49 aniga iska lambarkaas ma haysataa may ma aqaan meesha ku dambeeyo muddo ay ugu dambeeyo markaas ku wareejinayo ugu dambeeyo goor ma ku wareejis 2013 okay xamar markaa timid xagee degtay xamar markaa imaad waalidkayga oo imaad Shingaana oo joogaan hay laakiin wiilka lambarkaan ay markaa xamar imaada akoon naafurta damcay ma akoon lambarku ma weydiin xagee degtay ku ma Shingaana imaad guri ayeedeen imaad ninkan ku soo doonanayo oo ku aroosayo oo saddexda bil ku qabo Shingaana iyo watay Shingaana ka qaadagna ka bacdi xaguu ku dajiyay tawfiiq ku dajiyay ayaan daran waqtigeeda sarta ayaan daran ma oo ku dajiyay okay ninka hadda ku qabo goorma isku sisteen 2020 wiilka ma ku noolaa markaas ma nooleen maalintaas muddo kadib markaa safarka buufiska ay galay wiilka cidooda ku wareejiyay asoo soconaya ku wareejiyay oo meesha loo aaday wiilkan oo iyagoo xagooda ku ayaan raali ahaw wax aan ku weydiinayo ma fahamto horta waxaan ku iri wiilka markaa ninkan hadda ku qaba ay isguursanaysiin wiilka waa iga dhinta dhahday ma ku noolaay oo ma haysatay ma buufisa ku weydiiyay may oo iga dhintay wiilka asoo ka dhinta isguursateen محمد موسى جيلاني قرما يسكون ستناسيو 2010 iyo markii wiilkaas ay qabay aan wacay wiisi oo سؤال فهم محمد موسى جيلاني waa guursada ma dhahay goorma ku guursaday 2010 xagee ku guursaday marko hooyada shiiqaal waa asan garawa adiga ku weydiin hooyada kuma weydiin hooyada aad soo kala duunama kartiin aniga heer xamar ay farciga hindiye galaan ya farciga hindiye galaan heer xamraan ahay Shingaani laga guursaday ayaan darana lagu dajiyay oo tawfiiq ah waa kala tagteen kadib xagee degtay marka kala tagna Turkiya baaday aduu Turkiya aaday hay intee laga ku maqnay Turkiya muddo 9 bilood ma maqnay hay kadibna markaas soo laabtay ninkaadii qaban guursaday oo uu sheegay in akoonkaaga shakhsiga ah ee ah 487 aad ku ururisay lacag gaaraysa 1,374,467.49 senti eedaas lagu soo eedeeyay oo hadii maxkamaddu kugu hesho aad ku mutaysan doonto xarig ugu yaraantiisu ay tahay 1 sano ugu badnaantiisuna 24 sano ay tahay eedaas lagu soo eedeeyay ma gashay mise ma gelin mise dood sharciyeed ka qabtaa ma galin maxkamadda gobolka Banaadir waxay u fadhiisanaysaa dhageysiga dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay 577 kaasoo eedeysanad ay ka tahay ayaan Abuukar Maxamed Malab oo xafiiska xeelaliyaha guud ee qaranka ku soo eedeeyay dacwad lacag dhaqis iyo maalgelin argagixisada ayaan maxkamadda gobolka Banaadir hor taagan tahay qaybteeda ciqaabta
maxkamaddu waxay ku akhrin doontaa eedda xafiiska xeerlaalinta kugu soo eedeeyay ee maxkamadda uu soo gudbiyay eeddaas ayaad dhegeysan doontaa waadna fahmi doontaa markii aad fahamtana su'aalo ayay maxkamaddu kaa weydiin doontaa su'aalahaas ayaad ka jawaabi doontaa eedaysana ayaan abuukar maxamed malab ina mulki maxamed axmed dhalatay 1 bishii Janaayo 1994 ku dhalatay degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir degan degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir kuna xiran xabsiga dhexe ee Xamar faahfaahinta eedaysana ayaan abuukar maxamed malab eedda koobaad waxaa xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranku ugu soo eedeeyay qodobka 221 faqradiisa labaad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sababtoo ah waxaad kamid noqotay urur hubaysan oo ka soo horjeeda qarannimada Soomaaliyeed adiga oo sameeyay koonto bangi oo ay dhaqaalaha baada ah ku urursadaan kiiskan waxaa dhibana ka qaranka Soomaaliyeed goobta uu dambigu ka dhacay waa magaalada Muqdisho taariikhda dambigu dhacay waa 2 bishii Febraayo 2021 ilaa November 2023 eedda koobaad lagu soo eedeeyay waa eedda ku xusan qodobka 221 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed sababtoo ah wuxuu xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranku sheegay inaad kamid noqotay urur hubaysan oo aad u sameysay akoon bangi si ay lacag baad ah u urursadaan xafiis haddii qodobkaas lagu helo waxaad mutaysan doontaa ayaanay xarig u dhaxeeyay 3 sano ilaa 15 sano eedaas lagu soo eedeeyay oo ah inaad akoon u furtay ururka argagixisada kana mid noqotay ma gashay mise ma gelay mise sharciyeed ka qabtaa ma galinaan okay eedda labaad ee xafiiska xeerlaaliyaha guud kugu soo eedeeyay oo ah eedda ku xusan qodobka 3aad oo la akhriyay qodobka 28aad ee sharci lambar 1 soo nabaxa 22 bishii labaad 2016 ee sharciga ka hortagga lacag dhaqida iyo maalgelinta argagixisada sababtoo ah waxaad akoonkaaga shakhsiga ah ee lambarkiisu yahay 40 17 33 15 ee kaaga furan Salaam Banki aad lacag ugu ururisay kooxda argagixisada ee Al-Shabaab lacagtaas oo dhan 1 milyan 372,467.49 senti adiga oo ujeedada aad u aruurisay lacagtaas ay aheeday in lagu maalgeliyo ururka argagixisada laguna fuliyo falal argagixiso kiiskan waxaa dhibana ka qaranka Soomaaliyeed goobta uu dambigu ka dhacay waa magaalada Muqdisho taariikhda dambigu dhacay waa 2 bishii February 2021 ilaa 6 bishii January 2022 eedda xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranku ugu soo eedeeyay oo ah eedda ku xusan qodobka 3aad ee xeerka lacag dhaqista iyo maalgelinta argagixisada oo uu sheegay in akoonkaaga shakhsiga ah ee ah 40 17 33 15 aad ku ururisay lacag gaaraysa 1 milyan 372,467.49 senti eedaas lagu soo eedeeyay oo haddii maxkamaddu kugu hesho aad ku mutaysan doonto xarig ugu yaraantiisu ay tahay 1 sano ugu badnaantiisuna 24 sano ay tahay eedaas lagu soo eedeeyay ma gashay mise ma gelin mise dood sharciyeed ka qabtaa ma galin eedda saddexaad ee xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranku ugu soo eedeeyay waa eedda ku xusan wuxuu sheegay inaad ku kacdo faldambiyeedka ku xusan qodobka labaad faqradiisa koobaad labaad oo lala aqriyo qodobka 28aad ee sharci lambar 1 soo nabaxay 22 bishii 2016 ee sharciga ka hortagga lacag dhaqida iyo maalgelinta argagixisada sababtoo ah waxaad akoonkaaga shakhsiga ah ee lambarkiisu yahay 40 17 33 15 aad kaga furtay Salaam Banki lacag ugu ururisay kooxda argagixisada ee Al-Shabaab lacagtaas oo dhan 1 milyan 772,467.49 adiga oo ujeedka aad ugu ururisay lacagtaas ay aheeday in lagu maalgeliyo urur argagixiso laguna fuliyo fal argagixiso kiiskan waxaa dhibana ka qaranka Soomaaliyeed goobta uu dambigu ka dhacay waa magaalada Muqdisho taariikhda dambigu dhacay waa 2 bishii February 2021 ilaa 6 bishii January 2022 eedda xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranku ugu soo eedeeyay ee ah eedda ku xusan qodobka labaad faqradiisa koobaad iyo labaad oo ah inaad lacag dhaqisad samaysay oo lala aqriyo qodobka 28aad ee sharciga ka hortagga lacag dhaqida iyo maalgelinta argagixisada oo ah inaad akoonkaaga shakhsiga ah
سلام بنك فران أفرتن 8 تضبط صدني 6 شنية طبعا أتكو أروي سلعة كلمة اللي 6 بقول تضبطني يلا بكون أفر بقول لحدني تضبط دبيع أفرتني سجالة وجيت كأدو أروي سنة هذا إن لجوف لي فلا أرجع حسه داس حفيزك حلال تقوسه إيدي ما قش مثل مجرين بس ضاد شرعية كقطع مجرين أي إفرش